waan yaabay oo way yaabeen oo waa la yaabanahay annagoo dhan xilli ciyaareedkan sida uu socdo xawaaraha guulaha ee kooxda Chelsea oo reer Chelsea uu xal qaata habeenku caawana waxay laba cad ay ka dhigeen kooxda la yiraahdo Brasov oo marti ugu ahayd garoonka weyn ee Stamford Bridge qulubta qof kasta oo taageera Chelsea habeenkan caawa ah waxa isku qoray laacibka yar ee lagu magacaabo Loftus-Cheek oo noqdayba xidigii ugu horeeyay ee Ingiriis ah oo saddexlay ka dhalaya tartanka Europa League tan iyo Harry Kane oo waa bilaabay bilowga goolka koobaad daqiiqadii labaad. Great chance here for Loftus-Cheek. What a start, a rare start for the young English midfielder and a super start for Chelsea. Not even 2 minutes played. And it was so easy. shaqadii William goolkii Loftus-Cheek iyo daqiiqadii 8aad. Decent corner 2-0. Did Giroud get the touch or not? It doesn't matter because Chelsea have already doubled their lead. qaybtii hore waxa lagu kala nastay 2 gool iyo waxba iyadoo hogaanka ay ku hayso Chelsea markii la isku soo laatayna daqiiqadii 54 mar kale waxa uu raaciyay kooxda Brasov Loftus-Cheek oo halkaasina ka dhaliyay saddexleydii ugu horeysay ee Europa League iyo saddexleydii ugu horeeyay ee xidig Ingiriis uu ka dhaliyo tan iyo Harry Kane. Challenge Loftus-Cheek. Brilliant. The hat-trick goal is the best of the three. Stunning finish. And what a night for Ruben Loftus-Cheek. Chelsea's hat-trick hero. goolka kaliya oo ay la imaaday kooxda Brasov waxa uu ahaa mid ka yimid xidiga lagu magacaabo Oloxay. Well, that's a lovely ball and it's a great chance and it ought to be 3-1. Kepa's first proper save of the night. oo Chelsea waxayba ku guuleysatayba iyadoo uu joogta Stamford Bridge 3 gool iyo gool.